Bismillahirrahmanirrahiim waa Somali News maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale xog kale taasoo ah adeega deyn bixiye oo ayadana Hormuud ay soo wado. Adeega deyn bixiye ayaa waxaa ah adeeg shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaad u tagi doontaa, waxaadna dhihi doontaa waxaan furtay adeega deyn bixiye, fadlan hal ii active gareeyo ama hal ii ogolaado. Waxaa khasab ah inuu yahay lambarkaaga lambar diiwaan gashan, lambar xiriir fiican la leh shirkadda, lambar uu ku xiran yahay account Salaam Somali Bangi, lambar aad banaanka ka soo jabsatay in lagugu furo lama yeeli doono, laakiin adigu waad ku sii furan kartaa asagoo activate kaaga baahan. Haddii aad ku cusubtay channelka subscribe saar si waxyaabo fara badan oo aynu soo wadno aynu kula wadaagno walaal. Waadna ku mahadsan tahay inaad halkan soo gaadho. Marka hore waxaad qori doontaa xidig 913 xidig ayaad ku dari doontaa lambarka aad hadda ku isticmaalayso ayaad gelin doontaa 81 waa lambarka tusaale ahaan. Kadib waxaad dhihi doontaa xidig intaan xifdiso walaal, intaan inaad xifdisato ayaa lagaaga baahan yahay. Marka intaan xifdisato waa si toos sida adeega looga shaqaysiiyo. Marka lacagaha uu ku deyminayo ayaa inta badan gelin doontaa kolkii aad adeega soo furato oo aan haddaba ku sii fahansiin doono. Kolka intaan geliso ood okay tiraahdo wuu ku active gareysmayaa si automatic ah waliba ayuu kugu active gareysmayaa, laakiin kolkii aad active gareysato sidoo kale wuxuu kaaga baahan yahay inaad tiraahdo lacag ayaan u baahanahay inaan deyn bixiye ku helo. Tusaale ahaan waxaad leedahay xidig $10 $10 kolkii aad Hormuud ka qaadato waxay ku noqon doontaa kaar caadi ah oo kuma noqon doonto anfac laga wada faa'iiday. Hormuud adeegan ayay waxa ay shaacin doontaa bisha 4 ee sanadkan. Haddase waad sii furan kartaa, active waad ka dhigan kartaa. Anigu hadda wuu ii furan yahay, okay ayaan leeyahay. Bye bye buu leeyahay. Thanks for using the device. Device-ka aan isticmaasho waad ku mahadsan tahay.